soo dhawaada qaybtii saddexaad ee GitHub-ka qaabka loo isticmaalo amba sida loo isticmaalo. Qaybta waxaan baran doonaa qaabka amba nooca loola soo dego fileska amba faylalka from GitHub amba GitHub-ka looga soo dejisto. Marka waa laba qaybood amba laba nooc amba laba siyaabood baa loola soo degaa. Nooca ugu horeeya amba qaabka ugu horeeya loola soo degayo waxa weeyaan waxaad ku dhufanaysaa halkaa koodhka kabacdina waxaad dooranaysaa download zip. Marka qaabkaas waa qaabka ugu fudud aad la soo degi karaysid. Kabacdi waad ku dhufanaysaa sidii caadigeed. Marka faylalkii waad haysaa text editor-kaaga amba bahalkaad koodh ku qortid baad ku furaysaa marka. Qaabka labaad waxa weeyaan isla halkii baad ku dhufanaysaa linkiganaad copy-yeynaysaa. Markaad linkigaa copy-yeysid waxaad tegaysaa text editor-kaagii amba noocaad isticmaalaysid. Anigu waxaan isticmaalayaa VS Code. Kabacdina waxaad odhanaysaa git clone kabacdina waxaad ku paste garaynaysaa linkigii. Enter baad siinaysaa kabacdina wuu kusoo copy-yeynaya. Marka waa kuwa faylalkii oo dhan. Marka labada qaybood amba nooc baa la isticmaalaa. Halkaasay nagu joogaysaa qaybta.